dhalinyarada ku dhaqan magaalada Elafweyn ayaa telefishinka caalamiga ee Bulsha TV ku booqday garoonka magaaladaasi ee kubadda cagta waxay dhalinyaradu tacsi tiiraanya leh u direen eheladii qoyskii qaraabadii iyo sidoo kale asxaabtii ay ka baxeen dhalinyaradii ku qarqoontay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga aad baan u tacsideeyay Allah naxariisto dadkii dhintay halkan waxaan ka tacsideeyay dhalinyaradii heer Soomaaliland ee tahriibay tacsiye la soo diriyay tiiraanya intaana iman shalay doon baa degtay tusmiye cali baa ku jiray tiiraanya intaana iman dad iyo tulo nafteeda tahriibta la iska day aniga ku hadlaya afka degmada iyo dhalinyarada gobolka dhalinta degmada waxaan halkan tacsiye tiiraanya uga dirayaa dhalintii ku noqotay badda waxaan leeyahay ehelkii qaraabada ka dhinteena samri iimaan sidoo kale dhalinyaradu waxay sheegeen in dalada dhalinyarada ee Sooyo iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ay ka gaabiyeen waajibaadkii iyo sidoo kale dadaalkii shaqo ee dhalinyarada Somaliland ka saarnaa waxaana dhalinyaradu carabka ku dhufteen guddiga wasiirada ah ee madaxweyne Siilaan 2011 uu igmaday joojinta iyo sidoo kale wacyigelinta oo aan lahayn meel ay ku dambeeyeen markii ay dawladoodii ka qusteen ay doorteen gacantooda ku doorteen sababta tahriibta keentay kun jeer soo noqotay waxa weeye shaqo la'aanta baahsan ee ka jira dalka Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland 2011 wuxuu magacaabay guddi ka hortagta tahriibta حتى الآن قد ذي تهريبته يوسيري مدحوينه مقعامي لما هيو dhalinyaradii ba maxay toolay haday garamo sport meesha ay guriga laga dhistay taa waxa ka gaabiyay door ugu dambeysay wasiir halkan imaad xataa agaasimo wasiir iska daay agaasimo qof sport ka socdo degmada Elafweyn soo istaagay hal yeelatay ma jiro hadii baa hay badan kale waxaan leeyahay dawladda dhalinyarada tahriibisa u sameeyo ama shaqo ay qabtaan sportigana waxaan aad dhiirigelina inay dhalinyarada u soo jeestaan anagu xukuumadda waxaan ka codsanaa iyo dawladda inay horta loo sameeyaan koroomo aan ku ciyaaro kubadda oo dhalinyarada amal loo sameeyo baan ka codsanaa dawladda waxa kale oo anagu ka hadlaya qalabaadkan iyo waxyaabahan la siiyo waqtiyada Ramadaanta uma baahnay waqtiyada Ramadaanka waxaan u baahanahay waqtiyada aan ciyaarno yaanu degmooyinka ku jirno waqtiyada Ramadaanka badana waan ka fasax tagnaa waxa Ramadaanta wax lagu qabanayna wax iska cad weeye waxaan fahmi waayana waa taa waxaan ka codsanay inuu masaakiinta taa wax ku siiyo oo timada wax ugu iibiyo annagana waqtiyada kale wax na qabto halkan waxaan ugu garoonka dhagaxlaha baan loo dhagaxmaan leysay in roogno loo dhigo dadka maana sanaga wax loo ma qaban sanaga wax loo taran doonina in qabyaaladii waxa la iska daayay maana sanaga wax loo taro oo dhagaxlaana laga qabto sanaga hoos loogu soo dhadhaan dadka nu sheegana wax kale idin sheegana halka naga Ramadaan toonba loo furaa koob yar xayraana koobka xayraanka dimo baan koob weyn baan u baahnaa wanaagsan oo meel walba laga hirgeliyo wala wax loo taro halkan ciidamada timaado wasiirnimo iyo madaxda sportiga ka socdaan ma yimaadaan Abdurrahmaan Ismaaciil Saciid telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Elafweyn